qisadaas waxay ahayd wiil yar oo da'diisu 10 sano uu jiro oo waddanka Sacuudiga u dhashay magaalada Riyaad ku dhashay haddana jooga magaalada Madiina Masjidul Quba ayaa imtixaan yar looga qaadayay wa ficlan ninkii ka qaadayayna wuu ka xishooday wuxuu yiri kaana mafruud waxa ahaa adigu inaad iga qaado laakiin inaan waxaan rabaa kaliya wax ku weydiiyo adaas iga haboon inaad iga qaado wiilku waa 10 jir waa in dhalaya sidaasuna ku dhashay in dhala'aanta qur'aankana waa xaafid kaliya ma aha dhowr qiro yaqaana 3 qiro taqriiban buu hadda sheegay inuu yaqaan waxa inta uu si dheer kutubta cilmu qiraa'aadna ilaa 3 kitaab xifdisan yahay oo ijaazo u haysta waxa la weydiiyay oo ninkaas ka qaaday quraanka meel alla meeshaad rabto ii weydiinaya waxa uu weydiinaya oo kale raqamul aaya wa suura aayad kasta lambarkeeda iyo suurada lambarkeeda iyo page-ka wajiga ay ku jirto maxagu ka sii jeedaa mise xagga may u dambaysaa ma dhax bay ku jirtaan uu sheegaya su'aal muhiim ah buu weydiiyay waa su'aasha aad ila cajab badan runtii aadna u muhiimka ah wuxuu ku yiri maxaa rabtaa hadda inaad noqoto wiil 10 jir ah oo indhool ah alhimma alcaaliya waa wax muhiim ah inuu qofku meel sare ka fikiro wuxuu yiri waxaan rabaa inaan noqdo imaamka xaramayn imaamul xaramayn baan noqdaa ayaan rabaa inaan noqdo oon aimada xaramka aan mid aan noqdo cilmigana aan bartoon qof caalima noqdo xaqiiqatan markuu hadalka wiilku dhahayay waxa igu soo dhacday 100% insha Allah ta'ala inuu noqon doono aimada xaramka caalimna waxa igu soo dhacday ibn Baz inuu indhool ahaa sheekha hadda sheekh Abdul Aziz sawna maaragtay muftiga Sacuudigana uu sawna uu yahay indhool marka inay u badan tahayba sifaad badan markaad fiiriso cilmigiisa waxa ka daran wiilku inta kale waxa igu cajab badnayd carabta dadka carabta ah waxaan moodaynaa inay naxwada iyo carabiga wada yaqaanaan yani naxwada carabtu naxwadu waa wax barasho u baahan waxna waa wax lisaanka uu soxo oo qofku saliiq ahaan buu isaga soo dhashaayo ku hadlaa dadna in badan oo kamid ah laxni bay ku hadlaa iyagoo carab marka sheekha su'aalaha weydiinayay ayaa wuxuu khalday eray uu weydiinayay su'aashii si naxwi ahaan khaldan buu u weydiiyay laakiin wiilkii baa saxay oo si sax ah uga jawaabay hadalkiisa dhan waxaad moodaa marka isagoo inta leeg buu yahay caalim oo 10 jir weeyaan laakiin wuxuu ku daray oo kale wiilkii waa wiilka indhoolka ee quraanka sidaa ku bartay macallin baa markii hore ilaa ibaray buu 7 juz camal kadibna hooyaday iyo aabahay ayaa igula dadaalo inta kale ii dhameystiray kadibna waxa la keenay xaramka la keenay halkaas uu ku galay muassasaadka tacliimiga ee taxfiidka buu kamid noqday wuxuu yiri quraanku wuxuu u baahan yahay al-juhd wal ijtihaad yani wax iskaga soo ka dhacaya ma aha waa wax dadaal u baahan ikhwaani إلهي سبحانه وتعالى كلامك إلهي وأنا ميسر إلهي باكو شيء مرنا إنه ثقيل يهي وحلوسي هي مرنا إنه يهم متفضل إنه يهم مرك إن شاء الله تعالى أن همذا أن قادنا وأن بقوة قرآنك إن شاء الله تعالى أن قبنا وهدو وقت قرافي ووضع رافي وقت دير وقت جاء أيضا كفكرين أيضا فيرنين أنت كدم بيساعد فيرسو dadka hadda la yaab kale 70 sano qof jiro quraanka hadda xifdinaay 80 sano qof jiro quraanka xifdinaay qofku isagoo oo jira 70 jaamacaad kanay dadku dhigtaan oo ka baxaan man quraanka baran oo ka baxnay isagan 70 sano jira jaamacadda wad aadi laakiin quraanka ma soo fariisatid oo macallimiinta inta timaadid aad adiguna maartay alif lagaaga